maamulka degmada Faraweyne oo ka talaal qaadanaya go'aankii ka soo baxay xukuumadda ee lagu joojinayay qaadka inooga yimaada wadanka Itoobiya ayaa iyagoo kaashanaya ciidanka booliiska ee degmada Faraweyne ayaa waxay gacanta ku soo dhigeen laba baabuur oo loo kala yaqaan noohada iyo waliba duqaan ama fitista labadani baabuur ayaa hab kontrabaan ah soo gelinayay gudaha degmada Faraweyne iyo waliba deegaamada hoos yimaada qaadka waxaana qaadkaasi lagu soo qabtay baabuurtaasi lagu gubay gudaha degmada Faraweyne ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay taliyaha saldhigga degmada Faraweyne Khalid Maxamed Cali wuxuuna ka waramay sida ay ka ciidan ahaan uga howlgaleen qaadkani awaamirtii heer qaran ee madaxweynaha ka soo fushay ee la guddigii ka hortagga cudurkan coronavirus ama COVID-19 digreeto in la joojiyo qaadka bisha Ramadaan waanaga hortiina ku gubayna markaa 200 marduuf iyo 100 kilo waxa kale oo haynaa laba gaadiida oo shuurli iyaga maxkamadda Norgeyn doono oo aan ognahay in lala wareegi doono taasi waa marag badoon wixii kale baaris ba hawshoodii lagu soo kala saari doona haloo guntado hirgelinta awaamirta lagu badbaadinayo ummadda Xasan Maxamuud Cawke oo ah madaxa kormeerka ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland oo qaabilsan deegaamadani ayaa isaguna ka waramay sida ay waqtigani uga howlgalaan qaadka kontrabaanka lagu soo gelinayo 100 kilo iyo 200 marduuf ciidanka degmada Faraweyne taliyaha maamulka degmada ee looma kala harin waa loo guntaday anaguna kormeer ahaan sidaas u garab taaganahay wasaaradda maaliyadda wadogtiino laf dhabar buu ahaa cashuurta qaadku waxa looga maarmayna waa naftii bilaadmiga weey waxa weeyaan dadka reer Soomaaliland war naftii iyo maarkiisa ka raacina inoo soo kala gudoomiye ku-xigeenka degmada Faraweyne Maxamed Xasan Guuleed iyo gudoomiyaha degmada Maxamed Cabdi Gargaar oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka waramay sida ay uga howlgaleen qaadkani habka kontrabaanka lagu soo gelinayay degmada Faraweyne iyagoo geesta kalena fariin dheer u diray dadweynaha ka ganacsada qaadka mudada 25 ka cisa dhammaan ciidamada booliiska iyo degmada iyo markaasi qolada kale ee markaasi anti kontrabaankuba waxay heegan ay ugu jiraan in ay gaari kasta iyo qof kasta oo isku daya inuu ka soo gudbo xuduudka intii taalkooda inay markaasi qabtaan marka waxaan leeyahay dadka aan uga digayaa war naftiina iyo xoolihiinaba ha ku waayina inta yare aad arkasaan ee mijimaha iyo 10 kilo iyo baagaasi aad dadkiina markaasi uga digasaan marka qof kastana sharciga ayaa la marin doonaa in dhammaan jaadkaasi waxaan arkanaa si toos ah inay markaasi ay maamulka degmadu iyo ka booliisku iyagoo si wada jira markaasi ay u gubayaan meesha fagaaraha ah habeen iyo maalin saasan heegan ugu jiri doona hadii la yiraahdo waajibaadkii qaran iyo ka hortagga xanuunka COVID-19 jaadkaasi waxaan ku soo qabanay laba baabuur labadii baabuurna TV-ga waa kuwa hortiina yaala waxaan uga digaynaa dadka ka ganacsada jaadka inay ka waantoobaan oo ay ku kalsoonaadeen fuliyaan awaamirta dawladda awaamirta madaxda sare nafteena lagu badbaadinayaa nafta shacabkeena lagu badbaadinayaa waxaan ka hortagaynaa aafadaasi ayaa laga hortagayaa waxaan leeyahay halaga waantoobo hawshaan halkaas aan ka sii wadaynaa